munaasabadan ballaaran oo looga hadlayay dabkii ka kacay degmada Gurceel iyo sidii looga tashan lahaa koortaka masiibooyinka dabiiciga ah ayaa lagu qabtay gudaha degmada tan Gurceel waxaana ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug xildhibaano gudoomiyaasha degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ganacsato iyo odayaasha dhaqanka oo ugu horeeyo Ugaas Xasan Ugaas Maxamed kulanka ayaa waxaa daafuray sida protocol ku yahay gudoomiyaha degmada Gurceel Cabdullaahi Maxamed Barre Beenta waxaa kulankan maanta soo agaasimay guddiga qiimeynta iyo gurmadka degdega ah oo magacaabay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Shaakir Cali Xasan oo loo magacaabay musiibadii ka dhacday degmada Gurceel 31 bishii 3aad 2019 runtii guddigaas in badan ayuu soo qabtay qiimeyntii uu soo dhameeyey arrintan waxay iska saaran tahay gurmad iyo taakulo gurmad wuxuu ahaa arrintii hore oo markii musiibadu socotay dadku ay ka qayb qaadanayeen dadku isu gurmanayeen ayuu ahaay billahi karim ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu guuriyo madaxa Gurceel aadan ugu mahad celinaynaa sida sharafta leh oo ay qaateen musiibada meeshaas ka dhacday ay naftooda u hureen maalkooda u hureen siday ku joogto lahaayeen markii meeshaas ka dhacay intaas bacdeen guddigu wuxuu soo xil saaray in laba arrimood la sameeyo maadaama qiimeyntii ay soo dhameeyeen dadkii ku dhaawacma meeshaas ay soo ogaadeen qaarkooda iyo meelaha ku kala soo yihiin iyo kirsigooda intaba dadkii ku waxyeeloobay oo maalkooda ku baaba'ayna ay soo ogaadeen sidoo kale waxa isna halkaasi si wada jir uga hadlay wasiirka maaliyadda maamulka Galmudug Saciid Siyaad Shirwac iyo wasiirka qorsheynta Cabdigaafi Maxamed Qaas waxayna sheegeen inay ku biirinayaan sanduuqa gurmadka degdega ah lacag dhan $20,000 waxaan soo qorsheynay dowladda Galmudug hadaynu nahay lacag yar oo aan ahayn dib ugu dambeysay oo ah $20,000 inaan hadda sanduuqa ku biirino $20,000 man noqon doonto ilaa isugu noqon doonaa wixii kale oo kari karnay meelaha xagan doono waa xagan doono lacagtaas waa lacag cadaan ah laakiin Gurceel labada mashruuc oo idin sheegay si degdeg ah u fuli doona insha Allah taala waxaan kaloo rabnaa inaynu iyaduna samayno wadooyinka waxaan rabnaa inaynu samayno xarun lagu tababaro farsamada lagu baro dadka dhalinyarada oo shaqo la'aanta oo aan hubno inay magaalada aad u tiro badan si aan magaalada looga dhaqin meelaha loo qorsheeyay ayay Gurceel ka mid tahay in dhalinyarada la baro farsamooyin ay ku shaqeystaan waxaan ku talagalnay inaan Gurceel siino maadaama ilaa 80,000 oo qof ay degan ganacsigu aad ugu badan yahay inay hesho koronto jaban inay Gurceel hesho ayaan ku talagalnay waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo wasaaradda maaliyadda maynkeeda diimana idinkunoobimo sharciga wasaaradda maaliyadda oo hadda shaqeeyada waxaa ku jira dadka in wax lagu celiyo canshuurta aad bixisaan inaan wax lagu soo celiyo waana shuruuc wasaaradda maaliyadda oo hadda casriga oo shaqeeya shuruucdeeda waxaan rabaa oo ku hadlayna afka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxa xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan in horta idiin sheegno inaan garabkiina taaganahay annagoo isku duuban oo 5 wasaaradood ah maanta halkaan aan ka ballan qaadno waxoogaa lacaga oo rabno inaan isdhagiin barbar istaagno ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray ugaaska beesha Ceer Ugaas Xasan Ugaas Maxamed wadanka ka soo jeeda oo ama ubajoogta ama ganacsatada waxaan u diraynaa oo ka codsaynaa inay maanta dalkooda iyo dadka ay ka dhasheen inay u soo gurmadaan waan ogtihiin oo waan la socotiin in maanta ayadoo qiimaha Ilaahayna siiyey hantida Ilaahayna siiyey tagooga iyo tirada Ilaahayna siiyey in maanta aan ciid ku dhamino dabkii ka kacay guryaha iyo maalkanaga ودولنا وتعصب دولنا واسوي على الله إن شاء الله دي هي هذول حال الله
dadka waddankan ma ka harayo 4 iyo 5 dabdamis ama ambalaasyo wax walbaan rabnaa waxaan sidii aan ahayn inaan ka baxnaan rabnaa waxaan ka codsaa qurba joogta iyo ganacsatada qaymaha leh oo dalka u dhalatay inay sida ugu dhaqsiyaha badan dalkan wuxuu u badan yahay xoolaale xoolihiina abaar baa haysta barkooda waa galaynaa oo ma ka harayno laakiin waa badaynaa gadaalanka dhigi doona insha allahu markii dhibaatadu naga daan maamulka iyo dhaqan kale iyo reermiyi iyo reer magaal baan leenahay waxaan qurba joogta iyo ganacsatada ka soo jeedaa waddankan dabku iyo dhibaatadu ka kaceen oo qaaliga noqotay oo sida fiican u kortay inay ka soo gaaraan oo u dhaqsadaan dabdamis inay bishaan inta lagu jira inay keenaan marka kooda Farxaan Axmed Cabdi Galmudug TV Gurceel